بسم الله الرحمن الرحيم إيبا ما هدله مولها خلقك مجن إله باله ملايك خيركم وديو محمد بانور له اللهم صل وسلم وبارك عليه كنا تو عنا وناكسن ومركلة برنامج كاني هل أبورك أو هل أبورك نعسيتك وحينوات كشيكيسان دونا لابا قدم وكلا حيرارك أما با تيرارك هل أبورك waxyaabaha tiirka u ah in qof kasta oo doonaya inuu xal abuuro urur kasta koox kasta inay yeelato isla markaana ay ku dhaqanto iyo qodobka labaad oo noqonaya qaybaha ama inta siyood ee wax loo hal abuuro haddii aan ku horeeyo qodobka hore ee ah xeerarka ama tiirarka hal abuurka tiirarka hal abuurku way tiro badan yihiin waxaynu ku soo koobi doonaa qodobo kooban qodobka koobaad waxa weeye inay doonisi jirto in la sameeyo waxaan shaqada la qabanayo in doonis gudeed jirto dadkuna ka wada raali yihiin shaqadan qabanaya inay waxaan sameeyaan waxaan soo saaraan waxaan galaan doonistu waa bilowga shaqo kasta ama hal abuur kasta hal abuurka la iskuma qasbi karo la isumana diri karo laakiin way doonis gudeed jirta qofku markasta doonistiisa gudeed ay ballaaran tahay ama ku weyn tahay waxaanu doonay inuu sameeyo ayuu soo saari karaa hal abuur wanaagsan isla markaana mushkilad xallin karaa ama wax cusub soo kordhin karaa la isma amro doonista la iskumana qasbo hal abuurka qodobka labaad waxa weeye inaan doonisteena guul ku xidhno doonisteena gudeed aynu doonayno inuu wax samayno doonayno inuu fikir fulin u bedelo waa inay ku xiran tahay guul waa inay waxa inoo muuqda tahay inaynu ka gungaarayno waxaanaynu doonayno haddii markiiba diiradda inaga qabsato in waxaan aanu midho dhalaynin waxa soo koobmaya xitaa qaababkeenu u samayn lahayn uga madhadhalin lahayn laakiin haddaynu guul doonayno oo doonisteena aynu guul ku xidhno waddada aynu maraynaa markastaba waa tii inugu hagaysay inaynu doonisteena ka midho dhalino qodobka saddexaad waxa weeye inaynu garanayno ujeedooyinka waxaanaynu samaynayno ujeedooyinka aynu waxaan u samaynayno waa inaynu sidoo kale hiigsi jiraa meel aynu hiigsanayno oo waxaanaynu doonayno inaynu samayno oo inaynu ka leenahay ujeedo cad oo bar cayimana aynu u soconno una sii jeedno qodobka afraad waxa weeye barasho qayb baynu ka shaqaynaa ama waxbaynu jecelahay amaba waxbaynu ku shaqaynaa waxaynu doonaynaa waxa inaynu horumarino inaynu hal abuur cusub marba kusoo kordhino inay noqoto wax midho dhala oo sii socda waa inaynu aqoonteena ku sahabsan qaybtaasi aynu ballaarino waa inaynu markasta xooga saarno inaynu wax cusub kororsano markasta oo aqoonteenu ay badato waa markasta oo hal abuurkeenu uu ballaadho ama aynu wax cusub soo kordhinayno waxaanu garan karaynaa sida aynu wax u xalinayno waxaanaynu garan karaynaa sida aynu wax u soo saarayno qodobka afraad shanaad aan idhaahdo waxa weeye shaqo waa inay shaqo jirtaa waa inaynu shaqo diyaar u nahay waa inaynu doonayno waxaan ka shaqayno waa inay inaga dhab tahay inaynu shaqadan qabanno una hurayno waqti iyo wax kastoo qaali ah si aynu hal abuurkaasi amaba fikirkaasi aynu fulin ugu bedelno qodobka lixaad waxa weeye waxa aynu samayn karayno inaynu xoogga saarno inaynan xoogga saarin waxyaabaha aynaan samayn karaynin waxa aynu samayn karayno ayaynu fulin karaynaa soona saari karaynaa haddii diiraddu inaga qabsato waxyaabaha aynaan soo saari karayn ama waxyaabaha aynaan samayn karaynin intii aynu samayn karaynayna way naga kala burburaysaa way naga kala baahaysaa isla markaasina way adkaanaysaa inaynu tallaabooyin hore u qaadno waayo waxa aynaan samayn karayn mar walba wayna niyad jabinayaa waxaana wayna tusayaa baal madow oo ah waxaanu u soconay inaanu u hirgalayn sidaynu u rabno qodobka xiga waa inuu qorshe jiraa bilow bardhaxaad ilaa iyo dhammaad waa inay kuu qorshaysan tahay shaqooyinkaad qabanayso waa inay kuu qorshaysanayso fikrad waa inay kuu qorshaysan tahay fikradan kugu jirta qaabka aad u fulinayso qorshahaas waa inuu caddaadaa waa inuu tallaabooyinkiisii lahaadaa waa inuu hadba isagu ku xidhiidhiyaa kuu wadaa halka aad doonayso inaad gaadho qodobka toddobaad amaba ka xiga kani waxa weeye inaan isbeddelka ogolahay waxbaynu qorshaysanay sibaynu doonayna inaynu wax u samayno
intaa shaqada lagu guda jiro waa inaynu isbeddel ogolaan karno. Qaab aynu wax u qorsheynay ayay wax iska beddeli karaan. Waa inaynaan ka istaagin ee aynu ogolaan karno inaynu janjeerino, qalloocino, toosino, si kale u dhigno. Haddaynu isbeddelka ogolaan weyno, amaba ha ahaato isbeddel kooxeed, amaba ha ahaato isbeddel shaqeed, ama ha ahaato isbeddel habkeenu wax u wadnayba ha ahaadee, waxay noqonaysaa inaynaan ka midho dhalin waxa aynu u soconay. Yaynaan ku istaagin wixii inoo qorshaysnaa inay hirgeli waayeen. Yaynaan u joogsanin wixii aynu doonaynay amaba sidii aynu ka fikiraynay inay wax u dhacayaan inay u dhici waayeen. Waa inaynu isla beddeli karno hadba xaaladdu siday tahay, isla markaana ku socon karno sida ugu habboon aynu wax u samayn karno. Qodobka xiga waxa weeye inaynaan natiijada u degdegin. Markiiba ha doonin inaad ka midho dhaliso fikraddan kugu jirta. Waqti sii, tacab geli, inta ugu badan ka fikir, wax kasta u hor. Ha doonin markiiba inaad ka midho dhaliso. Fikrad baa igu jirta, saasaan u samaynayaa, berriba maxsuulkii baan doonayaa ama wax midho dhalkeedii baan doonayaa. Way adag tahay in laga gun gaadho. Marka natiijada yaynaan u degdegin, laakiin shaqadu ha badato, hawsha aynu qabanaynaana ha ballaadhnaato. Qodobka ugu dambeeya waxa weeye isweydiin joogto ah. Waa inaynu mar kasta hal abuurka carinnaa. Waa inaynu maskaxdeena furfurnaa. Maxaynu ku furfuri karnaa? Waa inaynu wax isweydiino. Tallaabo kasta aynu qaadayno, hadday sidan noqoto, sidaynu samaynaa. Haddii sidan waxay nagu soo baxaan, maxaynu samaynaa? Haddii sidan timaado, waa inay isweydiintu joogto ahaataa. Mar kasta oo isweydiintaadu badato, oo mar kasta oo waxaad ka midho dhalinaysaa ama waxaad soo saaraysaa uu ahaado wax miisaaman, una cuntamaya oo u qalmaya dadka aad ugu talagashay iyo suuqa aad u soo saarayso. Haddaynu intaa kaga nimaadno xeerarka amaba waxyaabaha hal abuurka u ah udub dhexaadka, aynu u galno qaybaha uu hal abuurka ka kooban yahay. Ma xadidi karno oo ma jiro qaybo cayiman oo la odhan karo intaasoo qaybood buu hal abuur ganacsiyeedku amaba in fikir fulin loo beddelaa u qaybsantaa. Hal abuurka waa wax ballaaran, waa wax mar walba joogto ah. Sida aynu hal abuur uga hadlayno ayaynaan qodobadana u soo koobi karaynin, una soo xadidi karaynin. Laakiin waxaa jira 4 qodob oo la yidhaahdo 4taas bay ku meeraan amaba 4taasi kama baxo hal abuurka. Qodobka koowaad waxa weeye inaynu wax jiray horumarino, wax jiray qaab cusub u dhigno, wax jiray qaabkii loo isticmaali jiray aynu wax ka beddelno, inaynu wax ka reebno wax jiray ama wax ku kordhino. Tusaale ahaan, degal baad leedahay ama website baad leedahay, qaab buu leeyahay ay bulshadu u daalacato ama wax u akhrido. Keliya waxaad samaysay inaad qaabkii wax ka beddesho, inaad qurxiso, inaad waxyaabaha qaar aan loo baahnayn ka saarto, waxyaabaha ku jiray fududayso. Waa hal abuur cusub. Waxaa laga yaabaa inay soo jiido oo ku soo jiido degalkaagii dad cusub. Waxaa laga yaabaa dadka ku xeeran ama akhristayaasha ama ku xidhanna inay wax cusub kugu soo kordhiyaan. Marka hal abuurka waxaa qayb ka ah in wax jiray la horumariyo isla markaana wax laga beddelo. Waana inta ugu badan la sameeyo. Ta labaad waxa weeye in wax cusub suuqa lagu soo kordhiyo. Wax horaa jiray, adigubaba aad qaban jirin, ma aad samayn jirin, laakiin qaab ka duwan cid kasta oo samayn jirtay ama cid kasta oo shaqadaa qaban jirtay ayaad u soo kordhisay. Waxaad beddeshay jihadii amaba qaabkii uu u socday waxaasi, adiga oo kaga horumaraya xitaa dadkii hore u qaban jiray ee shaqadan samayn jiray. Tusaale ahaan, Apple markii ay soo kordhisay telefoonnada, markii hore telefoonna may soo saari jirin, laakiin markay telefoonnada soo kordhisay waxay beddeshay jihadii ay u socdeen telefoonnadu. Haddii la isticmaali jiray telefoonno badhimo la taabto leh ama nambara leh amaba bottom caadi la taabanayo, waxay soo saareen telefoon touch ah amaba taabasho ah oo ku shaqaynaya gacanta ku shaqaynaya. Sidoo kale waxay fududeeyeen waxyaabihii gudaha waana horumariyeen. Maxay keentay? Waxay keentay si kasta oo qaali u ahaa, si kasta oo cusbaa, si kasta oo wax lala yaabo u ahaa inay haddana suuqa telefoonnada ay ku soo galaan wax aan caadi ahayn, bulshaduna si aad u ballaaran ay u soo dhaweyso ama u soo dhaweyso amaba ay ula qabsato una macaamisho. Qodobka saddexaad waxa weeye in la sameeyo nashqad ka beddel in la sameeyo. Waxbaa jiray, waxaas waxay u jireen qaab in wixii oo jira
laga bedelo qaabkii uu u shaqaynayo. Tusaale ahaan, waagii hore daabacaadda amaba waxyaabahan wax lagu koobiyeeya waxay ahaayeen qaar aad u waaweyn, aanay suuragal ahayn in xafiis la dhigto, aanay suuragal ahayn in si yaroo fudud loo isticmaalo. Markii uu soo baxay qaabkan aynu wax u daabacano ee isla socda inuu wax kuu sawiro, inuu wax kuu daabaco, kuu badiyo, iyo inaad ku badsan karto oo copying kuu samayn karaba. Waxay keentay in xafiis kastaaba isticmaalo. Way jirtay in wax la koobiyey, way jirtay in wax la sawiro, laakiin maxay keentay? Waa intii oo isku dhafan, isla markaana si fudud cid waliba ay u qabsan karto oo xafiiskeeda u dhigan karto, uguna shaqayn karto. Qodobka ugu dambeeya ama nooca ugu dambeeya ee wax loo bedeli karo amaba wax loo hal abuuri karo waxa weeye in warshadayn cusub la sameeyo. Wax aan jirin amaba wax jiray oo qaab loo isticmaali jiray in la soo kordhiyo qaab cusub oo ay u jiri karaan. Tusaale ahaan, haddii lagu safri jiray waqtigii hore gaadiidka, fardaha amaba awrta, in la soo kordhiyo in diyaarad lagu safraa. Waxay ahayd safar wuu jiray, dadkuna way socon jireen, waana la isu socon jiray. Laakiin qaabkii la isugu socon jiray ayaa wax laga bedelay. Waxa la sameeyey warshadayn cusub oo haddii gaadiidku mar ahaa wax cusub oo lala yaabo, waxay noqotay in diyaarad la soo saaro. Marka afartaa nooc ama afartaa waxyaalood ayay ku soo koobayaan amaba hal abuurku mar walba uu ku dul meelaa. Barnaamijkeenu maanta intaas inoogu koobnaan doonaa. Inta aynu xalqada xigta ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.